saacado ka hor waxaan baahinay in xaaladda culus ee u dhaxaysa labada dal ee Suudaan iyo Itoobiya ay tahay mid saameyn culus reebi karta haddii labada dhinacba ay u diyaar garoobaan dagaal culus oo ay isku dhacaan labada dal kaas oo ay ku muransan yihiin xuduud ay isku hayaan muddooyinkii u dambeeyay. Suudaan waxay qabsatay deegaano badan oo ka mid ah kuwa la isku hayay iyo waliba dhul dheeraad ah sida ay Itoobiya ku doodayso. war qoraal ah oo ka soo baxay Itoobiya waxaa lagu sheegay inay diyaar u tahay inay difaacdo qarannimada iyo madaxbannaanida dhulkeeda, waxayna Addis Ababa ku eedeysay ciidamada militariga Suudaan inay ku soo xadgudbeen xuduudaheeda isla markaana ay ka geysteen falal kale oo guracan. waxayna sheegeen intaasi ay tahay militariga dalku midda ay u dhisan yihiin difaacidda xuduudaha oo ay ka shaqayn doonaan. qoraalka Itoobiya waxay wacad ku martay inay qaadi doonto tallaabooyin lagu ilaalinayo madaxbannaanida dalkeeda. taas durba waxaa loo fasirtay inay tahay diyaar garowga dagaal ee labada dhinac ka dhexdhici kara. dad badanina waxay ugu baaqayaan dhinacyada durba oo uu ka mid yahay ururka midowga Afrika inay ka shaqeeyaan sidii ugu yaraan loo joojin lahaa hanjabaadaha isla markaana loo abuuri lahaa jawi wada hadal. hanjabaadda Addis Ababa waxay ku beegantay xilli Suudaan ay xoojisay guutooyinka ciidamadeeda dhulka iyo cirka ay Khartoum ku soo daadguraysay dhinaca xuduudaha Itoobiya ay la wadaagto. boqolaal dabaabaadka dagaalka oo ay leedahay Suudaan ayaa la geeyay xadka sida ay muujinayaan muuqaallo laga baahiyay baraha bulshada. sidaas oo kale wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in dalka Suudaan ay la wareegeen wax ka badan 70% dhulkii labada dhinac ay ku muransanaayeen. Itoobiya waxay xustay sidoo kale inay wali diyaar u tahay wada hadal in lagu dhameeyo khilaafka iyo in xaaladdu aysan faraha ka bixin inta ka horeysa. waxayna muujisay sida ay u doonayso ugu yaraan in la helo xal siyaasadeed oo lagu baajin karo dagaal culus oo dhex mara labada dal. dhowaan waxaa fashilmay wada hadal iyo wada xaajood ay yeesheen ra'iisul wasaarayaasha labada dal marka ay isku qabteen lahaanshaha goobahan. ra'iisul wasaaraha Itoobiya arrintan waxay ku tahay cadaadis weyn oo halis badan waqti xaadirkan haddii aan xal loo helin degdeg ah oo lagu maareeyo. dhinaca kalena wararka Itoobiya ayaynu ku jirnaaye waxaa jirtay baarlamaanka deegaanka maalmihii u dambeeyay ay dagaaladu ka dhacayeen inay soo saareen go'aamo cusub oo ku wajahan xaaladda dagaaladaas sidii loo baajin lahaa. fadhi gaar ah oo ay yeesheen golaha baarlamaanka ee dowlad deegaanka lagu magacaabo Benishanguul Gumiska waxa ay xasaanadii kala noqdeen 4 xubnood oo ka tirsanaa maamul goboleedka. xubnaha golaha deegaanka ee Benishanguulku ay aqlabiyadda ugu codeeyeen xasaanadda laga qaado waxaa ka mid ah 4 xubnood oo muhiim u ahaa howlaha deegaanada ka socda, waxaana loo haystaa inay si degdeg ah qayb uga ahaayeen dad badan oo la xasuuqay. go'aanka waxaa lagu gaaray shirkii shanaad ee socday ee golaha wareegii 6aad ee degdega ah kaas oo loogu yeeray si laga wada hadlo dhibaatada amni ee ka dhalatay gobolka Mitikel oo dad badan ay ku naf waayeen. waxaana xubnaha la cayriyay ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkii gobolka, agaasimihii guud ee wakaaladda sayniska iyo teknolojiyadda ee ismaamulka, guddoomiyihii hore ee aagga lagu dagaalamay ee Mitikel iyo waliba sidaas oo kale xubno kale oo iyana looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen. dadkan waxaa loo haystaa xasuuqi ka dhacay halka lagu magacaabo Bachukal qabalaha la yiraahdo ee degmada Bulan aagga gobolka Mitikel. waxaa ku dhintay in ka badan 200 oo qof sida lagu sheegay bayaanka xafiiska isgaarsiinta ee gobolka. xubnuhu sidoo kale waxaa xubnaha siyaasadeed ee gobolka qaar ka mid ah la sheegay inayna laga qaadi doono tallaabo kale oo arrinta la mid ah.